weli waxaa duqeymo ay ka socdaan qeybo ka mid a marinka Gaza oo diyaaradaha Israa'iil ay halkaasi duqeynayaan. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale ay soo buux dhaafiyeen dhanka xuduudda iyadoo la filayo in duulaan dhanka dhulka ah oo ka dhana Xamaas ay Israa'iil bilowdo. Xaaladda dadka Gaza ayaa kasii daraysa iyadoo biyaha, cuntada iyo korontada iyo dawooyinkaba ay gabaabsi yihiin. Israa'iil waxa ay horey ugu baaqday in 1.1 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool waqooyiga Gaza ay u guuraan dhanka koonfurta. boqolaal kun oo qof ayaana faaraxow ilaa iminka ka baxay. Tirada dhimashada dadka ku dhintay duqeymaha Gaza waxa ay iminka ka badan tahay 2450 qof oo lagu dilay duqeymaha Israa'iil. Mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta waxay sheegayaan in lagu qiyaasay ilaa $100,000 burburka iyo waliba dhibaatada soo gaartay halkaasi. Waxaa soo baxaya baaqyada digniin ah in xaaladda ay kasii dari karto gobolkan ay ku fidi karto. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in bariga dhexe ay soo food saartay xilli aad u yaab leh iyadoo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin iyo Xamaas gobolka sida hadalka u dhigay ay qarka u saarayso in bohol ku dhaco. Waxaa dhanka kala socda faarax wadada diblomaasiyadeed oo Mareykanka uu wado, isla markaana waxaa Israa'iil iyo qaar kale oo ka mid ah dalalka carruurta booqanaya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ku sugan Qaahiro ayaa sheegay in Israa'iil ay mar waliba ugu baaqayaan inay dhowrto xuquuqda dadka rayidka ah oo inta kalaankooda ah ay markaasi ilaaliso dadka rayidka ah. sida aan ka sheegay Tel Aviv, isla markaana madaxweyne Biden sheegay sida ay Israa'iil wada howlgallada waxay u baahan tahay inay samayso inay xaqiijiso qiyamka aan wadaagno ee ah ilaalinta nolosha bini'aadamka iyo karaamada bini'aadamka, iyadoo oo la qaadanayo taxadar kasta oo suurtagal ah si looga fogaado waxyeello loo geysto dadka rayidka ah. Markii aan ka soo laabtay Israa'iil, waxaan booqday 6 waddan oo gobolka ah oo kala ah sida Urdun, Baxrayn, Qatar, Imaaraadka, Sacuudi Arabiya iyo hadda oo Masar ah. Ujeeddadu waxay tahay inaan dhegaysano waddamadan xulafada nahay. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shir gudoomiye kulankii ugu horeeyay ee golaha wasiirada cusub ee la dhiso xilliyada dagaalka lagu jiro ama xaaladda dagaal lagu jiro. Isla markaana jawaab wahayd weerarkii toddobaadkii aanu soo dhaafnay Xamaas ku qaadeen gudaha Israa'iil. Netanyahu waxa uu ammaanay ciidamada Israa'iil oo uu sheegay in hawshooda ay si wanaagsan ay u gudanayaan. waxaan arkay halgamayaasheennii cajiibka ahaa oo hadda safka hore ku jira. waxay og yihiin in ummaddii oo dhammi ay ka dambaysay, way fahmeen hawsha baaxadda ay leedahay. waxay diyaar u yihiin inay daqiiqad kasta ku dhaqaaqaan sida ay u ciribtiri lahaayeen bahallada dhiigyacabka ah ee nagu soo kacay inayna dilaan. xamaas waxay moodaysay in nala burburin doono. annaga ayaa xamaas burburin doonna. madaxweynaha Masar Cabdilfataax al-Siisi ayaa sheegay in falcelintii Israa'iil ee weerarkii Xamaas ay ka gudubtay isdifaac oo ay u dhigan tahay ciqaab wadareed lagu sameynayo dadka ku sugan halkaasi. xilli uu ka hadlayay magaalada Qaahira ayaa waxa uu markaasi madaxweynaha dalkaasi Masar uu sheegay in imika xaaladda ay sameynayso Israa'iil ay tahay mid ciqaab wadareed ah. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Ayman Safadi ayaa dhankiisa BBC-da u sheegay in khatarta colaadda gobolka ay aad u sarreyso. waxaan ku jirnaa marxalad kale oo arrimuhu waxa ay nala aadi karaan muddooyin kale ayaga oo nagu riixaya meel aynaan doonayn inaan aadno. marka waxaa jirta khatar dhab ah oo aad u sarraysa, taasi oo ah in dagaalka uu ku fido daanta galbeed, Lubnaan iyo gobolka intiisa kale. taasina waa suuragalnimo aad looga naxo oo aannu si adag uga shaqaynayno sidii aan uga hortegi lahayn. laakiin nasiib darro, fursadaha ay xaaladdu ku sii cakirmi karto waa kuwo dhab ah.